lacagtii faraha badneed meesha gees niyo horta lacagtii waa qaybiyey haye waana kala bistay haye qanaad waa la hayaa lacagtii taas man kaaya fanaanka lagu magacaabo Cabdi Dhaanto isla markaana ka tirsan kooxaha gobolka Banaadir ka dhisan isla markaana ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inuu la goostay lacag ay leedahay dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda warfaafinta oo uu ka tirsan yahay ninka lagu magacaabo Cabdi Dhaanto isla markaana uu hadda baxsad ku joogo magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya balse daawadayaal intaana u gudagelin halka nagala socotaan waa Masaal Media fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saaro calaamada gambaleelkana ha hilmaamin si aad ula socoto muuqaaladii ugu dambeeyay aan baahin una noqoto daawadaha ugu horeeya ee dhageysta barnaamijyadeena fanaankan ayaa la sheegay inuu ka socdaalay magaalada Muqdisho isla markaana markuu baxayay uu hore u sii qaatay lacag lagu qiyaasay 500,000 oo dollar oo ay lahayd wasaaradda warfaafinta isla markaana loogu talagalay in loo qaybiyo hobalada Waaberi oo dhawaan uu ku biiray fanaankani lacagtan ayaa loogu talagalay in lagu caawiyo qoysaska ay ka geeriyoodeen fanaaniintii hore ee hobalada Waaberi ka tirsanaa sidoo kalena lagu dayactiro xafiis dhawaan ay furteen kooxda Waaberi markii loo dhiibay Nimcaan Hilaac lacagtan ayaa la sheegay in laga soo qaaday wasaaradda warfaafinta ayuuna soo saxiixay wasiirka warfaafinta hadda jooga xafiiska Master Maareeye lacagtan ayaa sidoo kale waxaa la sheegay inay si sharci darro ah uga soo baxday xafiiska wasaaradda warfaafinta ama akoonka wasaaradda warfaafinta ay ku leedahay bangiga dhexe ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdi Dhaanto ayaa la sheegay inuu markii hore socdaalkiisa ku ekeeyay magaalada Hargeysa isla markaana uu sheegay inuu soo laaban doono maalmo kadib balse lama ogeyn inuu lacagtani hore u sii qaatay ama wasaaraddu kama aynan warhaynin iyo guud ahaan hobalada Waaberi waa sida la sheegay xog ay heshay Masaal Media lacagtan ayaa la sheegay inuu Cabdi Dhaanto la tagay magaalada Hargeysa isla markaana uu halka dhowr habeen la joogay waxaana sidoo kale la socday Cabdi Dhaanto fanaanka reer Jigjiga ee lagu magacaabo Cabdi Xariir lacagtan markii Cabdi Dhaanto uu la tagay magaalada Hargeysa ayuu sidoo kale wuxuu uga sii gudbay dhulka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan magaalada Addis Ababa oo halkaasi ku tagay diyaarad ay leedahay shirkadda Ethiopian Airlines isla markaana uu ka degay hotel ku yaala magaalada Addis Ababa fanaanka ayaa la sheegay inuu lacagtani markii uu tagay halkaasi uu isticmaalay siyaabo kala duwan isla markaana uu lacagta inta badan u bedelay birta Itoobiya ama lacagta Itoobiya sida hadda aad ka arki kartaan sawirkani waa goob kamid ah magaalada Addis Ababa oo lacagaha lagu bedelo ama lagu change gareeyo hadba sida aad u taqaano Cabdi Dhaanto ayaa la sheegay inuu lacagtani cadadkeeda weli si sax ah aan loo haynin balse ay ka badan tahay ugu yaraan qiyaastii markii lacagtani isku celceliskeeda ay heshay Masaal Media ay kor u dhaafayso 500,000 oo dollarka Mareykanka ah Cabdi Dhaanto ayaa la sheegay in maanta ciidamada ammaanka dawladda Itoobiya ay kala baxeen hotel uu ka deganaa magaalada Addis Ababa isla markaana ay su'aalo weydiiyeen muuqaal ay heshay Masaal Media ayaa waxaa ka dhex muuqda Cabdi Dhaanto oo sheegay inuu lacagtaasi dhacay isla markaana uu la goostay haddana uu lacagtaasi isticmaalay sidoo kale uu sheegayo Cabdi Dhaanto in lacagtan uu ka labistay sidoo kalena ay ku baxday uusan haynin cadadkii kale ee lacagtaasi uu ka cunay waa sida uu Cabdi Dhaanto qirtay laamaha ammaanka magaalada Addis Ababa su'aalaha ay weydiinayeen waxaa kamid ahaa inuu sidoo kale meel ku sheegay lacagta uu qaatay una ka soo dhacay dawladda Soomaaliya waa sidoo kale Cabdi Dhaanto oo la xiriirtay Masaal Media ayaa ka jawaabi waayay qadka telefoonka ama WhatsApp-ka oo kula xiriirnay magaalada Addis Ababa dadka qaar ayaa noo sheegay in Cabdi Dhaanto telefoonkiisa saakay looga tagay hotelkii laga qabtay isla markaana uusan haysan telefoonka dhanka kale Cabdi Xariir oo la xiriirnay ayaa sidoo kale asna ka jawaabi waayay telefoonka maadaama Cabdi Xariir uu si aad ugu dhow yahay Cabdi Dhaanto isla markaana labadoodu isla socdeen Masaal Media ayaa sidoo kale waxay isku dayday inay arintani wax ka weydiido wasaaradda warfaafinta waxaana sidoo kale arintaasi ay wasaaradda warfaafinta dad ka shaqeeya ay sheegeen in ay ka soo saari doonaan bayaan maalmaha soo socdana ay dawladda Soomaaliya lacagtaasi sheegi doonto meesha ay ka baxday iyo cidda qaadatay iyo sida Cabdi Dhaanto lacagtani gacantiisa ay u gashay waxaan mar walba idin soo gudbi doonaa sida lacagtani Cabdi Dhaanto ay gacantiisa ugu dhacday iyo qaabkii ay wasaaradda warfaafinta uga baxday dadka qaar ayaa sheegaya in lacagtani
loogu talagalay in lagu caawiyo hobolada Waaberi islamarkaana kooxihii hore ee fanaaniinta ahaa lagu caawiyo. Waxaa dhanka kale suuragal ah in Cabdi Dhaanto loo soo musaafiriyo magaalada Muqdisho ama magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland, balse waxaa la leeyahay waxa ay u badan tahay in magaalada Muqdisho laga soo deji doono maalmaha soo aadan, gaar ahaan magaalada Muqdisho maalinta berri ah. Cabdi Nimcaan Hilaac oo sidoo kale arrintan aan wax ka weydiinay ayaa isaguna ka gaabsaday inuusan horudhac ka bixin doonin inta dowladda federaalka Soomaaliya ay arrintani faahfaahin buuxda ka siinayso shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. Dowladda uu madaxda ka yahay Xasan Cali Khayre farmaajana uu ka yahay madaxweynaha ayaa aad ula dagaalanta musuqmaasuqa, waa sida ay ku sheegeen, balse dadka Soomaaliyeed ee dhaliila ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ee iyadu hormuud ka tahay in hantida Soomaaliyeed la dhaco iyo shacabka magaalada Muqdisho, isla markaana magaalada Muqdisho kaliya laga qaado canshuurta, gobolada dalka oo dhanna aan wax canshuura laga qaadin, iyadoo shacabka Muqdisho loogu daray canshuurahaasi qof walba uu iska dhacayo in wadooyinka laga xiro, isla markaana aysan xitaa haysanin in hooyooyinka umulaya aysan gaari karin isbitaalada, aanan la shaqaysan karin. Maalintii shalay ay ahayd markii sidaan oo kale magaalada Muqdisho ay banaanbax xooggan uga dhigeen darawallada ka shaqeeya magaalada oo sheegay in lacagta canshuurta gobolka Banaadir uu ku kordhiyay boqolkiiba 50 aysan awoodin guud ahaan darawalladaasi magaalada Muqdisho ka howlgala, waa sida ay hadalka u dhigeen shalay banaanbaxoodii ayna ku xuseen. Dhanka kale, gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir dhawaan loo magacaabay Cumar Finish ayaa sheegay inuu wadooyinka furi doono. Hadda waxaana la daawataan Cabdi Dhaanto oo qiranaya inuu lacagtaasi dhacay isla markaana wax yar uu ka hayo hadda. ما انت يسا 6 مليون كان ساعة انت 6 مليون كايا كوي هي عطوا قيبي هذا ما تقول حرر احمد من بابا فين كره حرر ابو بدنا واي حريري محكمة السر علي بدي عبد الله هي ما حري لعقتي الشق لعقتي فراغ بلد ماشي قيس اليوم هرتها لعقتي واقعي هي وانا كلبست هي كنا دوالي هياي لعقتي انت اسمه كايا ما انت يسا 6 مليون كان ساعة انت 6 مليون كايا كوي هي عبد الله هي ما حري لعقتي الشق لعقتي فراغ بلد ماشي قيس اليوم هرتها لعقتي واقعي هي وانا كلبست هي كنا دوالي هياي لعقتي انت اسمه كايا ما انت يسا 6 مليون كان ساعة انت 6 مليون كايا كوي هي عطوا قيبي هذا ما تقول حرر احمد من بابا فين كره حرر ابو بدنا واي حريري محكمة السر علي بدي عبد الله هي ما حري لعقتي الشق لعقتي فراغ بلد ماشي قيس اليوم هرتها لعقتي واقعي هي وانا كلبست هي كنا دوالي هياي لعقتي انت اسمه كايا ما انت يسا 6 مليون كان ساعة انت 6 مليون كايا كوي هي عطوا قيبي هذا ما تقول حرر احمد من بابا فين كره حرر ابو بدنا واي حريري محكمة السر علي بدي Cabdi Dhaanto ayaa magaalada Muqdisho yimid sanadkii 2012 isla markaana ka soo qaxay dowlad deegaanka ama dhulka Soomaalida galbeed ee Itoobiya haysato. Cabdi Dhaanto ayaa xilligaas u imaanayay magaalada Muqdisho wuxuu ka soo cararay taliskii uu hogaaminayay Cabdi Iley, isla markaana cadaadis badan kaga yimid asaga iyo qoyskiisa. Cabdi Dhaanto ayaa magaalada Muqdisho ku sugnaa ilaa iyo muddadaasi, asagoo kadib isku bedelay fanaan tuma dhaantada kuna soo caanbaxay dhaantooyin badan oo uu ka qaaday magaalada Muqdisho. Cabdi Dhaanto ayaa sidoo kale aasaasay kooxda Banaadir Band oo asagu madax ka ahaa ilaa iyo sanadkii 2015 oo ay kooxdaasi ka howlgalaysay magaalada Muqdisho, walow aysan dowladda Soomaaliya si rasmi u aqoonsan marnaba kooxdan. balse Cabdi Dhaanto ayaa dhaqanka iyo hidaha Soomaalida magaalada Muqdisho wax badan ku soo kordhiyay iyadoo Soomaalidu dhaantooyinkana ay si aad u xiiseeyaan. Cabdi Dhaanto ayaa magaalada Muqdisho ku bartay waxbarashadiisa dugsiga sare ilaa iyo heer jaamacadeed isagoo gaaray. Cabdi Dhaanto ayaa hadda magaalada Muqdisho wuxuu ka yahay qof dibad jooga asagoo la baxsaday canshuurtii shacabka magaalada Muqdisho intaasi uu ku dul noolaa, maantana ugu amaal guday inuu lacagtiisii iyo canshuurtoodii uu kala goosto kadib markii taliskii uu ka soo cararay laga suuray xilka ama ay goobta ka wareegeen, isagoo ku laabtay magaalada Jigjiga oo uu ka yimid horani u sii qaatay
kistoo yar oo xoogaa ah lagana aruuriyey shacabka magaalada muqdisho. Masaal Media ayaa idiin soo gudbinaysay xogtan. Barnaamijkii intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe saaro calaamadda gambaleelkana ha iska hilmaamin si aad ula socoto xogaha aan baahino.